kulan wanaagsan dhamaantiin badawadayaal halkani waa Somali Freedom ku soo dhawaada muuqaal cusub kani waxa uu ku saabsan yahay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee Safiyo Tusmo kala kulantay intii ay joogtay Soomaaliya gaar ahaan sheekada dabcan noqotay mid kamid ah kuwa ugu hadalhaynta badan ee ay Soomaalidu sida weyn u gorfeynaysa gaar ahaan kuwii dhexmaray nin la sheegay in uu isaga dabcan qabay oo iyaduna ay u dhaxday balse isagu uu dib ka beeniyay jiritaanka guur wadaag ay labadooduba uu ka dhaxeeyay ayaa dabcan haatan waxay intii ay ku sugnayd magaalada Hargeysa oo ahayd maalmo murugo xanuun diif iyo darxumo marka la fiiriyo sida dabcan sharafkeeda iyo shakhsiyadeeda uu u saameeyay muuqaaladii laga jabsaday dabcan telefoonkeeda gaar ahaan snapka oo social media ama barkulanka dadyowga Soomaaliyeed ay aad ugu faafeen Safiya arintaasi aad bay u xanuujisay saameyn gaar ah iyo mid guudna ay ku yeelatay sida ka muuqata dhacdooyinkaasi oo dabcan heer ay gaarto inay noloshaba ka quusato ku qasbay Safiya ayaa haddana mararka qaybtood waxay ahayd hobalad geesi ah oo dabcan markasta oo ay xaaladda ku xumaato xilligana uu saacideyn waayo dib ugu laabata allihii abuuray ee koonkan keenay si bal ay u aaminto jiritaanka dabcan dhacdooyin kasta oo qofka muslimka inta uu dunida joogo uu la kulmi karo balse loo baahan yahay adkaysi dhiiranaan iyo ku talagal Safiya ninka iyada dabcan wax dhexmareen oo Soomaalidu intooda badani ay muuqaalada anshaxumada ay la baahiyay ee gaarka ah ee breefadka aan loogu talagalin dadyow in la wadaago dabcan lagu tuhmayay inuu baahiyay isagu waa iska fogeeyay dhammaan sheegashooyinka jiritaanka iyo wararka la xiriira inuu Safiyo Tusmo muuqaalada dabcan sharafkeeda lagu sumcadiriyay uu door ku lahaa waxay ahaataba haatan dabcan arintaasi wali xal loo mehelin balse wararkii ugu dambeeyay waxay leeyihiin hab dabcan reernimo ay u badan tahay in loo gali doono maadaama xogtu ay tahay mid dhab ah qofka kaliya ee la tuhsan yahay inuu hawsha tan fududeeyay ama waxan kan ka dambeeyay uu yahay ninka kan cabdi lagu magacaabo oo ay Safiyo Tusmo mar xiriir iyo haasaab wadaag iyo sidoo kale reer wadaag ba ahaayeen balse isagu uu beeniyay ayaa haatan u muuqatay in ugu dambeyn hawshaasi ay soo gabagabi doonto maadaama habka haatan hawsha loogu guda jiro ay tahay mid reernimo ah oo labada qoys ee inanka iyo inantuba ay dabcan haatan ka fariisteen oo hawlaha kan la guda galay haddii ma taqaanaa si Soomaali maanta way arrintan way wada gaadhay haddii sida ugu dhaqsiyaha badan la arrintan loo gaari waayana dib weyn baa ka dambeyn waxaan ka warbixinayaa dadcadii ku dhacday gabadha Soomaaliyeed Babar Cabdallo Tusmo Diray raado taasoo bariyaha ku jira arrinkeed gude waxa way hawshii sida uu soo agaasimay anaguna aan markaa doonayna inaan gabadhii ka wada hadallo oo dhaxayaan ku wada hadallo arrinka uu nagu deeriyay maanta oo shalay oo ahayd Khamiis waxaan maanta halkan ka sheegayaa saddex qodob horta adigu waxaan leeyahay nibba habeen guuro waxa ka qori habeen kale waraawo mooday waagi waa u bari qori wuxuu yiri waxmaday waraawo qori xalay qori waxa waxmaday waraawo waxaan noqotay qori waxa loo noqon buu guuro habeenada ka inta saan leh Cidagale waxaan leeyahay Cidagale haddii faras baalay ninkii dibeysa ka degay meel ka degu waay faras dibeysa ka degay meel ka degu waay makaasa aqal inniya qaas Cidagale leeyahay laakiin Safiya haatan geedigeedii joogitaanka Soomaaliland ayay soo gabagabeynaysaa si sagootin qurux badan ayaa loogu sameeyay magaalada Hargeysa haweenka reer Soomaaliland gaar ahaan kuwa caasimada jooga ayaa Safiyo Tusmo si diiran oo qurux badan oo gobonnimo leh dabcan ku sagootiyay iyadoo haatan dalkii ay ka timi ay ku noolad in dhaweyd ba Mareykanka dib ugu laaban doonto si bal ay ula midowdo caruurteedii iyo sidoo kale eheladeedii halkaas joogay haweenka oo garoonka madaarka ama garoonka diyaaradaha ee dabcan Cidagale International ee joogay ayaa dabcan saf dheer u galay si ay hobalada heesaaga ah ee Safiyo Tusmo ugu sagootiyaan si niyad sami ah qurux ah dalkacal ah oo ay u reejiyaan in dabcan noloshu inta uga dhiman ay halkaas ku sii qaadan doonto marar kalena ay suuragal tahay in dib ugu soo laabato deegaanadaas haweenka oo dabcan suugaan qurux badan ku sagootinayana waxa ay yiraahdeen
waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkeena la wadaaga saaxiibada kale halkan waxaad kala socon doontaan dhacdooyinka hadalhaynta baraha bulshada ee Soomaalida la falgala wehel ka dhigo oo rukumo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hantiya dhacdooyinka xiisaha badan ee la falgala dabcan nolosha bulshadeena nabadina dhamaantiinba